loops marka aanu ku jirno javascript ama programming language marka aanu ku jirno isticmaalino loops waxa loo isticmaalayaa shay ama amar aad doonaysid intaasoo jeer inuu soo noqdo tusaale ahaan waxaan doonaynaa inuu inoo daabaco barnaamijkeena javascript waxaan doonaynaa inoo daabaco number 1 ilaa 5 qaabkan u daabici karayaa waxaan isticmaalayaa marka waa loop markaan isticmaalayo qaabkan u isticmaali karayaa waxaan adeegsan karaa for baan adeegsan karaa oo while baan adeegsan karaa oo waxaan adeegsan karaa oo kale do while haddaba waxaan eegaynaa hadda sida loo isticmaalo for qaabkaasoo kale u qoraynaa bracketkaan furaynaa variablekii xaggan aan ku sameynaynaa x var x equal 0 semicolon waxaan leenahay x uu ka yar yahay 5 semicolon haddana waxaan leenahay x plus plus bracketka noocaas oo kale haddana inoo fur halkana waxaan leenahay console.log waxaad inoo qortaa haddaba x markaan soo refresh garayno respect aan tagno console tagno waxaad arkaysaa inuu inoo daabacay 1 ilaa 5 1 ilaa 4 u fiirso 5 kuma jirta meesha inaguna waxaan doonaynaa inuu 5 inoo daabaco markaas oo kale maxaan isticmaalaynaa waxaan isticmaalaynaa calaamadda equal baan isticmaalaynaa waxaan leenahay var x ha leekaado 1 x ha ka yaraado ama ha leekaado 5 x mar walba mid u sii gee hal number u sii gee markaan intaan save garayna hadda aan soo refresh garayno waxaad arkaysaa inuu 5 inoo gaarsiiyey 1 ilaa 5 bal ka waran haddaan u baahan nahay inuu inoo gaarsiiyo 50 imise markaa inaga qaadan lahay 10 si aan markaan u sameyno waxaa inoo sameeyey hadda 3 daal inoo kala arkaysid for waxaa loo isticmaalaa isticmaalaad fara badan ayaa loo adeegsadaa se waxa ugu caansan waa loopkan iminkaan garanay arkayno hadhow toore markaan casharo sare gaarno waxaan baran doonaa adeegsi dheer oo xeel dheer oo si professional loo adeegsanayo for